Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib waxaan ku leeyahay maalin wanaagsan, habeen wanaagsan ama galab wanaagsan, xilli walbo ay ku tahay. Maanta waxaan ka hadli doonaa mowduuc ku saabsan sushantii Sain Rajput, sawir iyo macluumaad aan horey loo daabicin. Ku soo dhawaada mowduuca maanta. Waxaa la helay sawir sushantii Sain Rajput oo aan hore loo arag. Muddo hadda sanad laga joogo ayay ahayd markii sushantii Sain Rajput meydkiisa laga helay guri uu ka deganaa Mumbai. Ninkan dhalinyarada ahaa ayaa ka soo shacbaxay muddooyinkii dambe fanka Hindiya. Geeridiisa ka hor wuxuuna lahaa hibo jiliin, inkastoo uu ka soo jeeday reer aan caan ka ahayn dhanka iyo filimada. Jilaagan caanka ah oo ay da'diisu ahayd 34 sano ayaa sida ay booliiska sheegeen la rumaysan yahay in uu isaga isdilay. Sushantii geeridiisa tuhun badan ayaa ku dahaaran, inkastoo aan weli wax badan la soo cadayn, haddana waxaa loo diiwaan geliyay inuu isdilay. Jilaagan filimaanta uu caanka ku ahaa waxaa ka mid ahaa MS Dhoni iyo filimkii caanka ahaa ee loo yaqaanay The Untold Story. Sheekada iyo hadalhaynta sushantii waxay dib u soo laabatay kadib markii ay sawir aan hore loo arag soo dhigtay atirisho caan ah. Sara Ali Khan, oo la sheegay in ay xiriir jacayl la lahayd jilaaga, ayaa xustay sanad guuradii ka soo wareegtay dhimashadiisa, iyadoo sawir aan horey loo arag la wadaagtay taageerayaasheeda. Sawirkaas oo ay ka wada muuqdaan ayada iyo sushantii. Sara Ali Khan, oo la sheegay in ay xiriir jacayl la lahayd jilaaga, ayaa xustay sanad guuradii ka soo wareegtay dhimashadiisa, iyadoo sawir aan horey loo arag la wadaagtay taageerayaasheeda. Sawirkaas oo ay ka wada muuqdaan ayada iyo sushantii. Sara ayaa shaacisay sawirkan oo aan weli la arag, kaasoo ay kula jirto sushantii Rajput. Waxay xasuus uga dhigtay dhimashadiisa. Gabadhan waxaan leeyahay waa arrin xanuun badan. Mar walba marka aad weyso qof aad jeclayd, haddana wadka cidna kama celin kartid, iska badaayay qof kale, taada ayaadan ka ilaalin karin marka la gaaro xilligaadii laga safrin lahaa dunidan. Sheekada jilaagan ayaa ah mid hadda saaran inta badan warbaahinta Hindiya, maxaa yeelay sawirkan ayaa abuuray hadalhayn weyn. Sara, filimkeedii ugu horeeyay ee Bollywood-ka wuxuu ahaa filimka la magac baxay Kedarnath, waxayna isla jileen sushantii oo ahaa xiddiga koowaad ama aktarka filimka. Sawirka Sara Ali Khan iyo sushantii Sain Rajput ayaa lagu qaaday meel u muuqato barkad lagu dabaasho. Sara waxay toos u fiirinaysay kaamirada iyadoo dhoola cadaynayso, halka sushantii dareenkiisu uu ahaa mid ay ka muuqatay farxad. Labada xiddig ayaa la arkay iyagoo xiran dhar caadi ah oo laga yaabo in loogu talagalay filimka. Markii ay taageerayaasheeda la wadaagtay fariinta, Sara waxay qortay, mar kasta oo aan u baahdo caawimaad, talo ama qosol, mar walba waad ila joogi jirtay. Waxay intaa ku dartay, waxaad i bartay adduunyada iyo sida wax loo jilo. Waxaad iga dhigtay in aan aaminay in riyadu rumoobi karto. Waxaad i siisay dhammaan waxa aan haysto. Ma rumaysan karo inaad dhimatay, balse mar kasta oo aan fiiriyo xiddigaha, qoraxda ama dayaxa, waan ogahay in aad halkan joogto. Hadallada gabadhan ayaa ah kuwo aad dareen u leh, dhanka kalena diin la'aan ay ka muuqato, balse sida hadalka uu u dhahan yahay wax lagama bedeli karo marka aad ka hadlaysid qof hadalkiisa. Dhab ahaantii, mar walba oo aad weyso qof aad jeceshahay ama aad shucuurtaada muujinayso, hadallada qaar ee aad adeegsanayso aad ayay u saameyn badnaanayaan. Jaraa'idiyada gudaha Hindiya iyo dhammaan meediyaha wax qora waxaa aad looga falceliyay sawirkan,
maadaama dhimashada jilaagan lala xiriirinayo dad badan. ugu dambeyn, su-aasha mowduuca daawade ma jeclaan lahayd inaan ka hadlo aflaamta iyo macluumaadkooda? fadlan ha hilmaamin inaad subscribe saartid channelka, sidoo kale like saar muuqaalkan, sheertana ha ka hilmaamin. intaasi waan kala mudannahay. waxaan ku leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bye bye.